السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا جنالكيغا فردوسو اسكو فيلان ومركا لينيو فيديو بليس دي ايتا مركي كوغو هوريسو جنالك سو بوغتو حكا عسانين اسكراب كريسو أصحابتا هذا كاللسي وذاكتو وكما سنتا داوشادو موقالكان أصحابي سو دواذا هادي آتا يدي سو دوينايا الحمد لله إله إيه مهضوردن وسقناتي isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaa rajeynaya idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allah caafiyo inta dhimata alla subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeya qof walba oo muraad lana muraadkiisa alla subxaana watacaala allaha u sahlo isku soo noqod wanaagsan asxaabey aad iyo aada idinkaga mahad celinaya sidaa mar walba fiidiyodeeda u daawataan saa u sheer garaysaan like-ta waa idinkaga mahad celinaa aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inaa moor intaas ka badan ii sameysaan waxaan aad iyo aada idinkaga mahad celinayaa dadka i daawado inay iskaraab ii wada yihiin inta badan awalka horeetood inta badan dadka waxay ahaan jirtay dadaan iskaraab ii ahaynin inay i daawadaan laakiin hadeertaan dadka i daawado waa boqolkiiba 52 55 waa dad yacni iskaraab iyo marka 45 sad kaleetoodna oo bilaa iskaraabka igu daawatana waxaa rajeynayaa insha allahu tacaala sabskraib inay ii saari doonto waa idinkaga mahad celinaya walaalaha qaar waxay isoo weydiiyaan meelaha aad duubeysid magacooda noo sheeg xaafadan aa ujeedaan waa tagamucul awal waaye soo marka xaafada tagamucul awal waa tii hore rixaabay ahayd marka waa kaasaa insha allahu tacaala soo fiidiyoyo qurux badan biidn illaahi tacaala iyo warbixino idin cajab geliyo ayaan idiin soo gudbi doonaa idinkana waxaa idinka rajeynaya inaa dhiirigelisiin moor intaan ka badan ay gaarsiisiin insha allahu tacaala haddii uu ilaahay yiraahdo jimca mubaarak jimcahan jimcaheeda ilaahay nabadii caafimaad allah nagu gaarsiiyo maalinta jimcaha waxaa wanaagsan in salliga nabiga la badiyo sala allahu calayhi wasalam nabiga ku sallino sala allahu calayhi wasalam suuratul kahfina la aqriyo qof alla qofkii yaqaano inuu aqriyo hadduu aqoon xataa qofka aayado inta u xifdiyo uu xifdin karaa marka insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala qur-aanka allah noo fududeeya ahlu qur-aan hum wa ahlullahi wa khaasa ilaahay subxaana watacaala allah naga wada yeelo kuwa maalinta yowmalqiyaamana qur-aanka uu shafeeca qaado oo dartiis jannada ku gala ilaahi subxaana watacaala allah naga mid dhigo asxaabay soo dhawaada waxaan rabaa maanta insha allahu tacaala inaan maxaa la dhahaa aan ka jawaabo su-aalo layga soo weydiiyey qofka haddii uu maxaa la dhahaa wadankan guri ka gato inuu deganaansho helayo iyo guri qaabka looga gadan karo kolley ani guri kamaana gadanin laakiin inta information haya idiin soo gudbi doonaa biidn illaahi tacaala hadduu ilaahay yiraahdo soo guri wadankan waa laga gadan karaa soomaali badan ayaa guryo ku leh oo wadankan degan waxayna maxaa la dhahaa baasaboorkooda ay haystaan ayay ku gataan guryaha maxaa la dhahaa marka shirkadaa jirto oo ayadana hadduu ilaahay yiraahdo shirkadaas magaceeda iyo informationkeeda iyo wiilka maamulaha ka eba waa idiin soo gudbi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo telefoonkiisa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo marka shirkadaasaa la xiriiri kartiin shirkado badanay leedahay oo guryaha oo iibiyo soo marka shirkadaasaa guryaha laga gataa waxaa la dhiibaa 10% 30% meelahaasaa la dhiibaa inta kaletoodna bilbilaa loo dhiibaa hadda caasimo idaariya caasimad cusub ay samaysteen oo tan qaahiraadu ay ka guureenba sida badan xaggay waxooda u rarteen soo caasimadaas cusub dad badan oo soomaaliyaha maal gashtay oo guryo ka gatay oo dukaaman ka gatay oo maxaa la dhahaa business yacni ganacsi badan oo dhuleed ka samaystaa jiro marka dad badanna sida badan dadka guryey ka gateen soo marka caasimadaas caasimad cusub waaye dadkooda lacagta leh bis aan u guuray marka anaka soomaali haddaan nahay meelahooda dadkooda lacagta la degaanaanba la degnaaba hadda rixaab oo kale dadkooda lacagta laha degan anaka waa la degannahay soo marka ilaahay subxaana watacaala odayaasheena xoogooda allaha barakeeyo ayagaa maasha allah dartood meel walbaba ku degnaa wiilasha soomaaliyeed waa ragga dunida ugu qiimaha badanaan dhihi karaa ilaahay subxaana watacaala allah u daysto waa ragga inta xaasaskooda biilaan oo awlaadooda biilaan xaaska aanan dhihin 50-50 ldib laakiin cadaanka iyo dadka kale iyo magaciisiga dumarkooda 50-50 la dhiiba marka
sharaftaas waxaa la ragga Soomaaliyeed oo keliya. So marka qofka hadduu guri u baahan yahay guri wuu gadan karaa. Tani shay haddii uu guri gato qofka ku helaa barmad, yes wuu ku helaa. Waayadii hore iqaamada sanadkaa bisay qaadan jireen, laakiin hadda Masar waxaa laga dhiga sida aan maqlay qofka maxaa la dhahaa guri ka gato inuu iqaamo helaa 3 sano ilaa 5 sano ah in la siinayo. Marka waa fikrad fiican waaye. Masarna wallaahi sida Turkiga oo kale cunsuriyiin maaha, dad aad iyo aad u wanaagsan waaye, dad lala degi karo waaye. Haba qaylo badnaadaan oo maxaa la dhahaa dad aad iyo aad u qaylo badan. Soomaalida way ka qaylo badan yihiin inkastoo oo guryahooda ayna ku qaylin. Waa isla deganahay ayagoo caruur leh ila degan yihiin guriga, hadalkooda ilmahooda ma maqlo markii runta laga hadlo, laakiin ilmaheena qayladooda waa la maqlaa. Marka laakiin banaanada marka wax ka gadanay sidoo kale suuqyadoo kale waa dad aad iyo aad u carabo waaweyn oo aad iyo aad u qayliyo oo yacni qayladooda mar walba la maqlo. Laakiin wallaahi markii qofka Masar uu la qabsado nimco badanaa taalo, wanaag badanna wuu ka helayaa haddii uu ogaado qofka danta uu u imaado meeshaan ujeedkiisa hadduu fahansan yahana Masar wuu jeclaysanayaa. Laakiin haddii aad ujeedada aad Masar u imaatay aaba ogeyninba mataqaanaa yacni mar walba oo culaysay la ahaanaysaa. Xagga iqaamada aad iyo aad mar walba dadka uga walwalsan yihiin. Iqaamooyinka xogaa waa la yara qaaliyey oo $150 laga dhigo waalidka ilmihiisa asaar dhigtaan. Waalidiinta kale toodna ayaga maca ilmahooda $150 iyo $150 ay dhiibayaan. Tan kale ilmaha yaryar awalka hore waxba lagama qaadi jirin, laakiin haddii cunugii uu maxaa la dhahaa iqaama uu dalbi rabtid lacag ganaaxay dul saareen oo lacag ganaaxay ka qaadaan $150 camal ay ka qaadaan. 150 loogu xareynaa ilaa $150 oo kale ayay ilmaha hadda ka qaadaan. Yacni ilmahayga 2 sano joogeen, qaarkoodna lacagaa liiga qaada, qaarkoodna liigama qaadin. Marka Masar waxaa ogaataan sharci saxa inuusan ka jirin oo qofka kuugu soo aado uu yahay kaas wixii uu kugu dhufto oo kan ka dambeeyana kugu dhufanaya. Marka insha Allahu tacaala ilaahay khayrkiisa na soo xijiyo. Walaalo badanaa jiro jecel inay Masar u soo guuraan, laakiin cabsi badan ay ka hortaagan tahay. Gabdhahaas waxaan dhihi lahay haddii aad Masar inaad soo degto aad jeceshahay marka hore salaata istiqaara duko. Haddii aad salaata istiqaara dukatid ilaahay subxaanahu wa tacaala aad baridana ilaahay meesha kuu khayra wuu ku waafajinayaa. Laakiin Masar sabar badan ay u baahan tahay. Iqaamada xataa iska daba celcelis ay u baahan tahay. Sinaha inta lagu qabsadaan ku dhaha mataqaanaa oo sas lagu fiiriyo kor iyo hoos laga aamusayaa ina u sabartaa loo baahan yahay. Qofka marka haddii uu u jeedo wanaaga uu meesha ku haysto waxaas waxba sharci yaroo soo aad doonatay soo qaadanaysa waxba uma arkayo sareexa. Wallaahi ani inaana waxba u arkin waxba ilamaha because maaragteen 4 sano YouTube ku jira 4 sano video idin soo gudbinay weli anoo cawanaa maaragteen yacni wax dhibaba ma arka ani wax caadi ah ila tahay. Laakiin waayadii dambe waxaan ogaaday dadka inay dhib la tahay ka xanaaqaan waxay yacni aad iyo aad ay mashaakil ula tahay. Ani 2020 markaan gabadhaydii iskoolka geeyay horta marka hore iqaamo waxaan qaaday jiray oo siyaaxi ah. sanad kadib waxaa liigu dhahay ama wadanka ka baxa macnug iskool geey gabar yar iskool geystay. Gabadhi yareed markii aan iskoolka geystana kadib warqad oo waxaa liigu xujiyay caqdiga guriga in la soo saaro maxaa la dhahaa tiimbarahaasa waxaan raadinayay bilooyin 4 bil ku dhawaad wiil Soomaaliya iska kii wareejinayay oo guriga aan deganahay mas'uulka ahay. Marka maalin walba intii ballamiyo shaarica qaar intii dhaho oo saabic ku yaalo aan tago oo taleefankayga qaba weyn jiray markaas anoo tacbaana soo noqon jiray. So alxamdulillah intaas oo aan dhiba oo magaciisa aan istaanba bis u maray weligay iguma soo dhicin wadanka ma ka tagtaa anoo wallaca waa soo maray oo waxaysan oo tacbaan maxaa la dhahaa oo la iska kay daba celinayno weligay allahay wadanka ama ka tagtaa iguma soo dhicin because waxaan ogahay wadanka riisaka u imaaday ilmahayga anaa u baahan wadanka ani ima baahno gabdhaha maalin walbaba ku goodiyo markii wax yar la dhahaa waa ka tagaa wadanka ka imaada u noqona wadankan intuu tigid soo goostay nooguma soo imaan dhulkii gaalaan joognay annaka inta tigidda soo goosanay oo lacagaheena qarashkeena soo gelinay ayaan imaanay. Soo marka gabar walbay wadankan imaanayso
waa haftu inaad ogaatid